madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer ku tagay xaruntii hore ee xerada agoonta degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaas oo isu tagay Imaaraadka Carabta ay ka hirgelin doonaan dhismo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa markii uu gaaray xaruntaasi waxa uu kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay xaruntaas oo xilligaasi ay ka socdeen howlo lagu dhisayo. taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuta Daahir Aadan Cilmi ayaa warbaahinta uga warbixiyay xerada agoonta dhismaha ay dawladda Imaaraadka Carabta ay ka wado isagoo sheegay in ay tahay xero loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in la diyaariyay macallimiintii tababarka bixi lahayd. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa xusay in tababarada ciidamada la siinayo ay noqon doonaan kuwo joogto ah maadaama dawladdu ay go'aan ku gaartay in ciidamada lagu tababaro dalka xaruntaana ay qayb ka noqon doonto xarumaha lagu tababari doono ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. xerada ay dhisayaan Imaaraadka oo laga dhisayo meesha u dhow kulliyadda Jaalisiyaad xeradaas oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed macallimiintiisa iyo tababaradiisa kala duwan ee kala khaaska taasoo dhinac ka ah yani go'aankii dawladda Soomaaliyeed ay ku gaartay in ciidanka gudaha dalka gudihiisa lagu tababaro. tababarkaas meeshaas wax weyn aad iyo aad weyn buu naga tarayaa. xeradaad soo aragteen maanta soo aragteen madaxweynaha ku soo wareejinay noocyo badan kala leh meeshii macallimiintu seexanaysay meeshii training lagu sameynayay meeshii dabriidka lagu sameynayay meeshii la seexanayay iyo meeshii mataqaanaa cuntada lagu cunay intaba ayadoo noocyo badan leh oo dhinaca gabdho iyo dhinaca wiilal bale marka ma dhammaystirnayn laakiin waxaa qorshuhu yahay muddo yar adigu ilaa iyo ugu dambays bishan July inay dhamaato qaybteeda hore qaybaheeda dambana waa socon doonaan. arrinta dhismahaas markuu dhamaado wax weyn bay ka tari doontaa dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay boqolaal shaqaalaha oo xaruntaasi ka wada howlo lagu dhisayo ayaa ku dhiirigeliyay in si hagaagsan ay ugu shaqeeyaan dhismaha xaruntaas maadaama goobta la dhisayo ay tahay xarun shacabka Soomaaliyeed loogu adeegayo waxaana muruqmaalkii dhismaha ku guda jiray xilligaasi ku booriyay inay ka faa'iideystaan mashaariic kala duwan oo dalka dib u dhis loogu sameeyo. in si fiican loo qabtaahay waxay u fiican tahay Soomaaliya waxay sharaf iyo karaamo u tahay iyo qurxin u tahay nimanka walaalaheena noo soo gurmaday ee shaqada nala qabanayo maxaan ku raad dawladda Imaaraadka Carabta oo yaani qarashkan iyo waxaan oo dhan dalkii waa naloo dhisay 900 oo qof meeshan ka shaqeysay cawada muxuu ahay biilay haystaan intii Ilaahay muxuu ugu talagalay intay socoto ka bacdina mashaariic waaweyn oo kale laga shaqeystaa dalka imaan doonto aye dhalinyarada alla aqli geliyo saaxiibada adiga waa shaqaysanoo haysa waa fiican tahay saaxiibkaaga la ka shaqaysanayno ama isbaarada u taalo ama shabaabka aaday halala waramo nolol ma jirto shabaab xaqiisa nolol ma jirto aakhira beel iyo adduunyo beel shabaab xaqiisa waa aakhira beel iyo adduunyo beel muxuu ahaay dhalinyarada halaga wargeliyo axmaashaan oo kale dhagaxa jibiyaano saasaa karaamadooda iyo sharaftooda ku jirta. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa socdaal ku tagay cisbitaal dawladda Imaaraadka Carabta ay ka hirgelinayaan magaalada Muqdisho waxa uu madaxweynuhu Imaaraadka uga mahadceliyay mashaariicda kala duwan ay ka wadaan Soomaaliya. Mustafa Maxamed Xiire telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.